ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay lacag dhan 1 bilyan oo shilin Soomaaliya iyo gaarigii waday kaasi oo ku socday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. lacagtani ayaana lagu qabtay magaalada Qardho sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. gaariga lacagta siday ayaana ku wajahnaa magaalada Boosaaso. ciidamada ayaa gaarigii siday lacagtan ku qabtay inta u dhaxaysa kantaroolada deegaanada alxamdulillah iyo sidoo kale deegaanka Waaciye. duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan ayaa sheegay in lacagtan ay kaga cabsi qabeen in lagu qalqalgeliyo deegaanada maamulka Puntland si sare loogu qaado sicir bararka ku jira magaalooyinka maamulka Puntland. waxa uu sheegay in lacagtan ay ku xareeyeen bangiga Puntland ee Qardho isla markaantaasina lagu sameyn doono baaritaano dheeraada. halka saaka bangiga dawladda ee magaalada Qardho waxa yaala lacag la soo qabtay xalay oo dhan 33 jawaan 43 jawaan oo runtii ay ku jiro lacag 860 milyan ah. runtii lacagtaas waxa weeye lacag aan wadan waxba yaraatay sharciya meel ay ka tibina aan la garanayn darawalku laakiin uu yiri waxa ka soo qaaday Garowe. runtii waa la soconaa maanta maciishadu meesha marayso iyo doolarka sarifka meesha marayo. halkii doolar maanta wuxuu marayaa 43,000 buu marayaa. waxyaalaha kicinayana waxa kamid ah maalba oo masaakiintu ku baabaayso waxa weeye lacagta kaashka ah oo sida sharci darrada loo soo gelinayo magaalada ama booso loo wado. hadda ka hor dhowr goor baa la qabtay lacagahan oo kale halka lagu soo xireeyay. runtii waxaan soo jeedinay haddii xataa cid leedahay ama dawlad soo baxdo ama cid la siinayo in lacag ay tahay sharciyeysan dokumenti leh dokumenteeda lagu soo daro. laakiin lacag 43 jawaan oo gaari ku cabaysan waxaan aragnaa inay tahay lacag sharci darro ah runtii lagu dhibaateynayo shacabka laguna kicinayo doolarka. ilaa haatan ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay lahaanshaha lacagtan ee ku wajahnayd magaalada Boosaaso, balse muddooyinkii ugu dambeeyay magaalooyinka maamulka Puntland ayaa laga dareemay sicir barar dhanka lacagta qalaada, iyadoona Puntland ay ku shaacisay intaasi ay saameyn xooggan ay ku yeelatay dhaqaalaha.